marka shacabka reer beledweyne waxaan ka codsanayaa inay cashuurta bixiyaan. marka maayarka magaalada waxaan u sheegayaa aan ballan qaadayaa qofka ugu horeeyo cashuurta bixinaya inaan ahay agaasimaha hoteelka Karan Hotel. Haliga soo doono waxaan loo baahan yahay contribution inaan bixinaa loo baahan yahay. waa la yiri aniga waxaan ku tiri lahaa keliya ma aan ahay horjoog ku noolaa wadamada qurbaha 35 sano. maanta waxaan kusoo noqday waddankaygii waxaan joogaa 2 sano ayaan ku noolahay magaalada beledweyne. beledweyne waa magaalo aad u qiimo badan aad iyo aad u weyn. dhibaatada ugu weyn aan ku arkay aniga markaan halkan imid waxa waaye dariiqiyo baabah jidkiyo baabah meel la mara ma laha. marka taasna waxaa keeni karo burburka iyo dhibaatada waddanka ka jirta. marka waxaan codsan lahaa aniga 30 sano ayaan cashuur bixinaya markaan qurbaha ku noolaa Yurub 30 sano cashuur bixinaya nin aan cashuur bixin waddankaas ma jirto. marka shacabka reer beledweyne waxaan ka codsanayaa inay cashuurta bixiyaan oo gobolkoodii iyo degmadoodii ay ku kistaan. muhiimadda ugu weyn waxa waaye dariiqaas baabaasan oo ugu rafaaday oo boorka badan leh wasaqda badan leh guryahan aragtay halkan ka dhisanay jidkiina saano ayuu yeelaa suurtagal ma aha. marka maayarka magaalada waxaan u sheegayaa aan ballan qaadayaa qofka ugu horeeyo cashuurta bixinaya inaan ahay agaasimaha hoteelka Karan Hotel. haliga soo doono waxaan loo baahan yahay contribution inaan bixinaa loo baahan yahay. 4 qoloo guryoos ka soo horjeedo haddii ay iska qaadaan lacag iska qaadaan oo dariiqan waa iga dhisan kara 4 kale usii dhiibaysaa. marka in la bilaabo loo baahan yahay. diyaar waxaan u nahay inaan bilaabno qofkii ugu horeeyaan rabaa inaan noqdo Karan Hotel maadaama aan ahay agaasimaha hoteelka. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. maada kaa gaarto agaasimeed waxaan isleeyahay markaad timaadeen in horumar aan bixi doono insha allah. anaga naftigeena xanuun badan ee lagu haysa cashuur la'aanta. waxaad ogtihiin mashaariicda ay bixiyaan hay'adaha kala gedisanaya adduunka waxaan haysataa wax kugu darnaawo. mararka qaar aan ka qayb galo shirarka waaweyn oo meerada Soomaaliya oo kaleeto ay maaragta lagu qabanayo adduunka. qof kasta waxay soo bandhigtaa cashuurteeda bilaha sanadlaha 6 bilood iyo 3 bilood. beledweyne markaas oo kale xanuunkeeda waxaa dareemi kara qofka shirkaas fadhiyo. waxaan aad iyo aad kugu faraxsanahay kuna mahadcelinayaa agaasimaha hotel Grand inuu yiri waxaa noqon doonaa qofka ugu horeysa cashuur bixiyo. cashuurtuna dadka waxay u yaqaaneen baawarta transportation cashuur lama rabo. cashuurtii belediga ahayd waa municipality oo dowladda hoose qaadi jirtay. waxaan rabnaa hadduu ilaahay yiraahdo shir inaan ku qabsano waxaan ballan qaada hoteelkan ganacsada isugu yeedha ganacsatada shirkadaha kala gedisan jaamacadaha waxa ka jiro system oo dhan magaalada shirkadkan ku qaban doonaa adaa bilaabi doono waana ugu daysi doonaa waana masuuliyad.